nabadgelyo aad baan idin salaamayaa dhammaantiin sharafi korkiina ha ahaato dad badan oo inaga mid ahi waxa ay qalad ka aaminsan yihiin guusha sababtuna ay tahay iyagoo arka guusha u dambaysa ee uu qof gaaray iyagoo aanan ka warhayn inta jeer ee uu soo maray wadooyin dhib badan nolol qaraar niyad jabyo quusasho iyo sheeyo badan oo aan loo adkeysan karin qof walba dhib gaar ah ayuu soo maraa dhibkuna wuu kala duwan yahay balse waxaa miraha dhabta ee guusha gaara qofka aan marnaba ka niyad jabin isagu waxa uu ku soo aaday xilliyadii ugu xumaa ee dunida ee uu jiray midib kala sooca isagu waxa uu aad u jeclaa jilitaanka filimada iyo mawhibada wax jilitaanka isagu si walba uu dadaal u bixiyay laba meelood noloshiisa guuldaro ayuu dhex taagnaa isagu waxa uu isku dayay inuu hibo kale ku biiro balse riyadiisii ayaa celisay waxa uu ku adkaystay in uu rumeeyo riyo sannado ka hor uu ku riyooday riyadana waxaa rumeeya qofka ay dhabka tahay isaga oo kale haddii qof shay isugu dayi lahaa xilligan uu ka khuusan lahaa sababtoo ah guul muusan gaarin shakhsigan in la eg nusqarni ilaa markii dambe riyadiisii uu rumeeyey isagoo jirna nusqarni iyo sannado isagu waa Morgan Freeman ninka loogu tixgelin badan yahay Hollywoodka nin ku wanaagsan qaab jilitaanka hibana u leh mawhibada jilitaanka guushu waa ay soo daahdaa waxayna timaadaa iyadoo dadka cajisiinta oo dhan ay hareen waxayna gacanta ka qabsataa midkaan niyad jabin sheekadeena maanta waxay tahay sheekadii guusha ee Morgan Freeman haleyga Hollywoodka Morgan Freeman waxa uu ku dhashay Mareykanka xilligii ugu xumaa ee uu qof madow ah dhasho sanaduna waxay ahayd 1937 waqtiga waxa uu ku beegnaa waqtigii cunsuriyadda iyo midibta koorku aad u jiray waxa uuna xilli uusan jeclayn in qof madow ah cunug uu u dhasho isagoo ka baqaya dhibka isagu arkay inay caruurtiisa arkaan isagoo xilligaasi ku soo aaday oo dhibka noocyadiisa kala duwan la soo kulmay muusan niyad jabin Morgan Freeman marka uu yaraa waxa uu aad u jeclaa mawhibada wax jilitaanka balse isaga iyo wax jilitaan waxa u dhaxeeyay darbi weyn oo u baahan in uu jabiyo si uu hadafkiisa u rumeeyo Morgan waxa uu isku dayay ka mid noqoshada Hollywoodka balse uu ku guuleysan waayay Morgan waqti dheer ah kadib waxa uu is arkay isagoo duuliye diyaaradeed ah waxa uuna isweydiiyay shaygan aad qabanayso ma yahay mid aad ku faraxsan tahay oo mawhibadaada ah waxa uuna isugu jawaabay maya maahan mid aan jeclahay waa inaan raadsadaa waxaan jeclahay si walba oo aan ugu dhibtoodo Morgan waxa uu ka fariisay duuliyanimadii waxa uuna geed dheer iyo mid gaabanba u fuulay sidii uu riyadiisii yaraanta u rumayn lahaa Morgan da'diisu markay ahayd 45 sano wax guul ah muusan gaarin haddaan inaga ahaan lahayna xilligaas waxaa xaqiiq ahaan lahayd inaan niyad midka ugu xun aan niyad jabi lahayn guushu waxa ay u dhaxaysaa dadaalka iyo sugitaanka Morgan waxa uu dadaalkiisa laba jibaaraba waxa u suura gashay inuu ka mid noqdo Hollywoodka isagoo 50 jir ah yacni noloshiisii intii ugu badnayd guuldaro ayuu ku soo qaatay waana tan waxa ay ku kala duwan yihiin kuwa guuleysta iyo kuwa guuldareysta xigmad aan qaybtii dhexe ku soo xusay waxa ay ahayd guushu waa ay soo daahdaa waxayna timaadaa iyadoo dadka cajisiinta oo dhan ay hareen waxayna gacanta ka qabsataa midka aan niyad jabin Morgan Freeman markii uu noqday 67 jir ayuu ku guuleystay biladii jilaha ugu wanaagsan kadib markii uu soo bandhigay jilitaan aan marnaba inaha laga qabsan karin filimkii loo yaqiinay $1 Million Baby maxaan ka baranaynaa sheekada guusha Morgan Freeman waxaynu malaynaynaa in guushu maalinta aan hawl bilowno maalinta ku xigta ay timaado balse waa qaladka ugu weyn oo ay galaan kuwa guuldareysta isagu waxa uu isku day waday in ka badan nus qarni waxa uuna ku guuleystay isagoo da'diisu ay weyn tahay sheekadan waxa ayna baraysaa inaan ku adkaysano waxa aan jecelnahay bedelka aan ku mashquuli lahayn maalinba wax cusub ereyga dhiirigelinta maanta guushu waa ay soo daahdaa waxayna timaadaa iyadoo dadka cajisiinta oo dhan ay hareen waxayna gacanta ka qabsataa qofka aan niyad jabin inta inoo dhaxaysa inaga iyo guushu
waa inagoo garana waxaynu doonayno waxaasna dadaal iyo juhdi ku bixiya marnaba aanan ka niyad jebin xaqiiq markaas xaq baynu u leenahay inaynu guulaysanno badalayaal wanaagsan aynu noqonno guulaystayaal diiwaanka lagu xuso cabqariyaal dadka lagu dhiirigeliyo sheekooyinkooda loo duceeyo goorta ay geeriyoodaan lana amaano inta ay nool yihiin ku dayasho aan u noqono jiilka gadaashan imaan doona aan dadaalno insha Raxmaan waan guulaysan doonaa idinka alle intaas baynu ku soo gabagabayn doonaa muuqaalkan fadlan hadaad ka heshay muuqaalkan like saar si uu dad badan u sii gaaro una share garay qof walba oo niyad jabsan si dhiirigelintan tusaalaha wadata ay u bedesho noloshiisa intaan muuqaalkan mid la mid ah aynu ku kulmi doonno anigu waxaan ahay sayid waxaana idin leeyahay nabadgelyo korkiina Allah yeelo